gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta gobolka Maroodijeex ee xisbiga UCID. Kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta xisbiga UCID ee gobolka Maroodijeex ayaa kulankaasi waxaa goobjoog ku ah gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga UCID Maxamed Aadan iyo waliba mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbigaasi. Kulankaasi markuu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay oo ka warbixiyay kulanka gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga UCID Maxamed Aadan iyo qaar ka mid ah مسؤولينta xisbiga UCID. Waxaan ku sugannahay xafiiskii gobolka Maroodijeex ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo nagu soo booqday gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Engineer Faysal Cali Xuseen gudoomiyuhu oo ku galaya xaaladda gobolka Maroodijeex ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka anagoo kula shireenaa dhammaan degmooyinka magaalada Hargeysa ka kooban tahay madaxda u joogta xisbiga 8 degmo marka kulankaas ayuu daaran yahay shirkaygu saaka gudoomiyahan aad baan uga mahad celinaynaa sida fiican ee xafiiska gobolka Maroodijeex hawsha uga socota oo nagu soo booqday shirkan maanta lagu jiro gobolka Maroodijeex xarunta gobolka Maroodijeex ee xisbiga UCID gudoomiyaha maanta loo yimi halka waxa wada jooga dhammaan xubnihii gobolka xogeyaashii heer qaran gudoomiyihii guud ajandaha la isugu yimi waxa way dardargelinta hawlaha doorashooyinka nagu soo socda sidoo wada ogsoonahay gobolkan Maroodijeex waa gobolka ugu weyn ee ugu dadka badan la xagga doorashada Soomaaliland hadii waana qalbigii jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga UCID haduu gobolka Maroodijeex intiina halka fadhida mudane gudoomiye iyo dhamaanteen qof kasto xilku ka haya xisbigan oo ku salaamaya hadii gobolka Maroodijeex uu inoo dhaqaaqo inoo hagaago ajandaha xisbiga UCID guul buu ku dhamaanaya marka waxa la rabaa qof kasto reer Maroodijeex inuu dhiisha guntiga iskaga xidho loona wada dhaqaaqo sidii aynu waqtigii ugu fiicnaa iyo ajandihii ugu wanaagsanaa iyo barnaamijka ugu fiicnaa aynu ugu hawlgelinaysa xisbi guul gaari lahaa maanta waxaanu joognaa xaruntii xisbiga gobolka Maroodijeex runtii gudoomiyaha oo baryahanba socdaal ku kala bixinayay dalka gudihiisa gobolada meelo badan jaamacadaha dawladaha hoose oo dardargelinta xisbiga iyo hawlihiisa aad iyo aad uu kor u qaaday baryahan tan maanta waxay ka mid tahay hawlahaas bay ka mid tahay waa ogeydeen oo waa la socota kolley miidiyaha oo kala socoteen in deegaamada fara badan ee wadanka ka kooban yahay min bari ilaa galbeed inuu gudoomiyuhu soo gaala bixiyay maantana caasimadii oo xaruntii xisbiga oo laf dhabarkii halkay ka dhaqaaqayseeda ayaa maanta aanu joognaa taasina waa taa oo ku soo dhaweynaa gudoomiyaha waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta waxaan iskugu nimid gobolka xarunta gobolka ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaan xarunta inagu soo booqday gudoomiye Faysal Cali Xuseen anagoo ka wada hadlaynay ama ka wada shaqaynaynay dardargelinta xisbiga iyo sidii loo hawlgeli lahaa gobolka Maroodijeex iyadoo ay tahay dardartii xisbiga iyo shaqagelinta sidii loo bilaabi lahaa aanu isugu nimi gudoomiyaha xisbiga iyo cadaaladda Faysal Cali Waraabe dalada Soomaaliland nabadda uu isaguna hogaaminayo alxamdulilaahi rabbil caalamiin taasaanu maanta hawlgalkeega aan wadnaa sidaan hawsha u bilaabi lahayn